ururka Noolay oo kamid ah ururada ugu firfircoon ururada bulshada ee gobolka Togdheer ayaa wacyigelin ka bilaabay xaafadaha magaalada Burco iyagoo kaashadaya dawladda hoose degmada Burco. Mas'uuliyiinta ururkan ayaa xaafadaha ka wacyigelinayay halista xanuunka COVID-19 isla markaana bulshada u sheegayay siyaabaha la iskaga ilaalin karo xanuunkaasi. Gudoomiyaha ururka Noolay Cabdiqaadir Aadan Ducaale iyo xubno kamid ah ururkaasi ayaa gabagabadii warbaahinta la hadlay waxaana hadaladoodii kamid ahaa annagoo iskaashina dawladda hoose ee Burco oo kana mas'uul ah ururada arrimaha bulshada gobolka oo dhan. Ururka Noolay wuxuu u taagan yahay inuu mar kasta uu ka qayb qaato wacyigelinta arrimaha bulshada. Sidoo kale COVID-19 aad iyo aad ayuu farabaas ugu hayaa degmadan Burco. Waxaan ogeysiinaa dadweynaha reer Burco in aad uga taxadiraan fayraskan COVID-19 waliba dadka waaweyn aad ugu daran. haddaan nahay ururka arrimaha bulshada ee Nooleeye waxaan saacad walba iyo mid walba aanu taaganahay inaan bulshada wacyigelino. haddaan nahay ururka Nooleeye waxaan u sheegaynaa bulshada reer Burco inuu COVID-19 kiisi speed oo fidayo please markaa ka taxadara cudurka inuu ahaa urur samafala khayriya ilaahay dartii u shaqeeya frontier ku shaqeeya sidaan ognahay xaaladda coronavirus maxay soconaysaa speed sanadkan oo sidii hore ka duwan marka doorkii horena waan ka qayb qaadanay wacyigelinta haddaan nahay ururada arrimaha bulshada gobolka Togdheer anagoo isku duuban maantana ka urur Nooleeye ahaan waxaan wadnaa wacyigelintii coronavirus-ka oo aanu maxay heeday ku talagalay inaan bulshadayada ka wacyigelino xanuunka dilaaga ah sida maxay heeday speedka u soconaya coronavirus ognahay caalamka oo dhan faraxun buu ku hayaa sida gobolka Togdheer faraxun buu ku sii hayaa maanta oo dhimashadiisa iyo inta u jiiftaba way badan tahay waxaan bulshadayada baaqalkan ugu diraynaa gaar ahaan reer Togdheer reer Somaliland in ay maxay heeday ku dadaalaan nadaafada in ay kala fogaadaan in ay maxay heeday isku arkaan calaamadaha coronavirus-ka lagu garto in ay la xiriiraan maxay heeday goobaha caafimaad in qofka uu xanuunsado uu soo dhaco lagu eegan guriga muhiimadda ugu weyn waxay tahay in nadaafada ilaalino maadaama taabashadii qofka xanuunka qabay hadduu qufaco kale hadduu maxay heeday hindhiso kale jirkiisa hada taabato xanuunka hadduu marada korkeeda kale 6 saacadood ku noolaanay birtana ka sii badan 12 saacadood in aynu kala fogaano ay muhiim tahay in aynu nadaafadeena shakhsiyadeed iyo qoysahadeed iyo bulshadeed ilaalina si uu noqono bulsho caafimaad qabta iyo wadana caafimaad qaba oo xilna wada saaran dhamaanteen haddana nahay bulshada reer Somaliland iyo reer Togdheerba waxaan kugu wacyigelinaynaa oo aanu maxay heeday anaguna rabnaa in bulshada ku wacyigelino faahaygan ku wacyigelinayna adigana ku wacyigelinayna in aad ilaaliso naftaada iyo nafta bulshadaada iyo nafta qoyskaaga waa Cabdirasaaq Cabdullaahi Shiqaadan Cabdirasaaq Koronto